haddii aan kuu sheego cabitaanka Coca-Cola ee aan wada garanayno in ingredientiga ama waxyaabaha laga sameeyo ay mar ka mid ahaayeen sheeyo maandooriye ah ama drugs ah, waxaa laga yaabaa inaad aamini weyso. Assalaamu calaykum, marka hore soo dhawow. Digniin ka hor intaan muuqaalkan u gudagelin, muuqaalkan dhexdiisa waxaan ku soo qaadan doonaa waxyaabo maandooriye inaan xoogaha yara sharaxno, anagoo ulajeedkeenu uu yahay in wax aan ka ogaano cabitaankan maadaama aan in badan aan cabno ama waddankeenaba laga isticmaalo. Waxaan la diidi karin Coca-Cola inay hadda ku jirto waxyaabo energy ku siinayo sida caffeine-ka oo inta badan laga helo shaaha iyo kafeyga. Dadka caba Coca-Cola inta badan haddii aad weydiiso sababtay u cabayaan, waxaa laga yaabaa inay kugu jawaabaan waxaan ka helaynaa tamar ama si energy ahaan ayaan u cabaynaa. Taas waxay ka duwan tahay sababta loo cabi jiray Coca-Cola. Coca-Cola asalkeeda hore waxaa sameeyey ama hindisay ninkan lagu magacaabo John Steve Bermerton. John wuxuu ka mid ahaa dagaalamayaashii ka qayb galay dagaalkii Mareykanka ee sokeeye u dhaxeeyay waqooyiga iyo koonfurta. John dagaalka waxaa ka soo gaaray dhaawac aad u daran, kadib dhakhaatiirtiis waxay kula taliyeen inuu isticmaalo daawo loo yaqaano morphine. Kadib daawadii wuxuu ku noqday addictive ama mid soo qabata la'aanteedana uusan joogi karin. John wuxuu ahaa qof farmashista ah ama daawada wax badan ka yaqaan. Wuxuu bilaabay tijaabo uu iskaga caawinayo inuu iska gooyo addictionka ay ku samaysay morphine-ka. John wuxuu soo saaray cabitaan ugu magac daray French Wine Coca. Wuxuu bilaabay inuu ka ganacsado asagoo dhahaya waxay ka caawinaysaa addictionka morphine-ka iyo xanuuno badan oo la xiriira neerfaha iyo waxyaabo badan. Cabitaankaas French Wine Coca ingredientiga ama waxyaabaha uu ka sameeyo waxaa ka mid ahaa cola nuts. Cola nuts waa geed inta badan ka baxa galbeedka Afrika. Geedka meelaha uu ka baxo dadka degan waxay u isticmaalaan sida tubaakada loo isticmaalo, waxaana aad ugu badan caffeine-ka. Wuxuu kaloo isticmaali jiray coca leaf. Coca leaf waa geed caleemihiisa oo drugs ah, waxaana ku jiro maado loo yaqaano cocaine. waxayna ka baxdaa coca leaves koonfurta America, waxayna sharci daro ka tahay wadamo badan, xitaa meesha ay ka baxdo ayaa waxay ka tahay sharci daro. Haddii aadan garanaynin cocaine, si aan fikrad kaa siiyo, waa daroogo qabtiimadiisa aad u daran tahay, aad u xoogan tahay ama powerful addictive ah. Dadka sida sharci darada u isticmaalana waxay sameeyaan intay budo ka dhigaan bahashii oo cad in ay sanka ka qaataan. Cocaine waxaa kaloo isticmaala bixiyaasha daryeelka caafimaadka si loo siiyo bukaanada sida xaaladaha qaliinka iyo wixii la midka. Waxaa kaloo xusid mudan sida ka muuqata magaca French wine inay ka mid ahayd wine-ka qayb ka mid ah khamriga. Muddadii ay socotay xarimidda khamriga ee dalkaas Mareykanka, John gobolka uu ka degnaa ee Atlanta, Georgia, waxaa laga xarimay khamriga. Maadaama khamriga uu u isticmaali jiray cabitaankaas, wuxuu ku qasbanaaday inuu ka saaro. Xarimidda khamriga keliya waxay ku ekeed inta laga soo bilaabo 1920kii ilaa 1933. Kadib laguma soo celin cabitaanka, laakiin waxay sii isticmaalayeen maadada cocaine-ka. Xitaa markii la xarimay maadada cocaine-ka, waxay sii isticmaalayeen lagu eedeeyaa caleemihii oo ku jiraan maadooyin kale ayagana maandooriye ah. Kadib magacii wuxuu u bedelay Coca-Cola oo ay yihiin coca leaves oo magaca inta hore iyo cola nuts oo la isku geeyey in magaciisaas laga dhigo. Shirkadda Coca-Cola ilaa hadda waxay inkiraysaa ama ay diidan tahay in mar ay isticmaashay cocaine-ka iyo khamriga ay cabitaankeeda u isticmaali jirtay. Laakiin dokumentiyada iyo taariikhda laga hayo ayaa waxay cadeen u tahay inay ku isticmaali jireen. Hadda xitaa haddii aad fiiriso ingredientiga iyo waxyaabaha ay ka sameeyaan, waxaa ka mid ah qayb sir ah oo aan la ogeyn. Taas dadka qaar waxay gelinaysaa shaki, laakiin waxaa is leeyahay waa la ogaan lahaa haddii ay u isticmaalayaan drugskaas ilaa hadda. oo ku maasan tahay muuqaalkan daawashadiisa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.